dhimatay rabbigeed ayay la kulmaysaa asagoo jecel ayaduna jecel radia allaahu canhum wa raduu canhu ilaahay bay ka raalli noqdeen ayaguna ilaahay buu raalli ka noqday subxaana wa tacaala bilcagsi gabar aan xijaaban baa dhimanaysa catar iyo barfuun bay maqrib kasta marsataa diin alla laguma karee heesahay u riyaaqdaa muusigay u malaysaa in janno alla lagu galo xantay u malaysaa in raadi ahaasho ilaahay lagu helo qaawanaashaha iyo xijaab la'aantay u malaysaa in derajada ugu sarreeya la gaaro xayaata baxeeda marka la gaaro oo ay sagaraado lacnada allah ayadoo dusheeda talbay dhimataa ilaahay wuxuu tilmaamay subxaana wa tacaala qola inay dhimanayaan mar allaala markay malaa'igtu u timaaday oofsanayso maxay samaynayaan markay malaa'igta u timaada sida ilaah yidhi waxay ku dhex jiraan fii khamaraati almowt khamaraadka geerida sakaraadka xanuunkiisa aad iyo aad bay ugu maashoonayaan sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala waalmalaa'ikatu basituu aydiihim inay dhintaan ma rabaane xayaataday celinayaan naftiyaa jisadka ku kala ordaysa nafsadii inay baxda ma rabto qofkii naca la kulanka alle la kulankiisuu nacaa subxaana wa tacaala ilaahay la kulankiisay nacday allah la kulankeedii nacay subxaana wa tacaala malaa'igtu intay gacanta u taagtay xoog uga soo bixinayaan xayaatada waalmalaa'ikatu basituu aydiihim akhrijuu anfusakum alyawma tujsawna cadaaba alhuun maanta waxaa laydinku abaalmarinaa cadaabkan u dulisan kan u xun kan u dhib badan saasaa loo dhahaa gabdhiyo xijaabnaa markay geerida u diyaargaroobayeen xayaataday u diyaargaroobi jirtay markay muxaadaraadka u diyaargaroobayaan kalaabyada carooskay u diyaargaroobi jirtay mar allaala markay aayadaha alla aqrinayaan tixagabay ah iyo eesay aqrin jirtay mar allaala markay salaada u istaagayaan xijaab la'aan bay bannaankay magaalada wareegi jirtay bacdamay xaaladdu sidaa tahay ayaa cadaab xun oo dhibaato badan oo mashaakil leh oo aad iyo aad u xun rabbi ku abaalmarinaya subxaana wa tacaala aad ha loo diyaargaroobo rabbi ha laga baqa subxaana wa tacaala tii hore dhimanaysay laa ilaaha ila allah bay ku dhimatay midaasa ma kari karta laa ilaaha ila allah waayo ahlu tawxiid ma ahayn yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabit fi lxayaati addunya wa fi alaakhira ilaahay waa ku sugayaa dadka iimaanka leh kelimada haabitada ah adduunkii aakhira labadaba wayudilu allahu aalimiin aalimiinta alla waa dhuminayaa waa la reed marinayaa ma oran karaan laa ilaaha ila allah say u dhahaysaa maba xijaabaninbe say u dhahaysaa khaaliqay ka cabsan weysaye say u dhahaysaa laa ilaaha ila allah ayadoo nool oo xayi ah oo awood leh oo socota oo adeeganaysa oo guursanaysa oo adduunkeeda u shaqaysanaysa yay laa ilaaha ila allah xaqiiqa la imaan weysay labadiba ilaahay hortiisaa la tegayaa waa la wada dhimanayaa mar allaala marka la dhinto walaalayaal dadku waxayna jecel yihiin in allaala intaan noolnahay intaan qaaraanka bixinaynayna soo dhowaynayaan laakiin maalintaa waxay nagu falayaan malaha waana la dhaqaajinaa waana la kaxaynayaa dahabkaagii waa lagaa furayaa hal faraati wallahan lagula duugaynin silsiladii waa lagaa saarayaa oo lagula aasi maayo adaa shaqaystay salaad baad uga tagtay hurdaad uga tagtay subaxiisaad suuqa u fadhiisataad maqribkii cishaa'iga guriga imaamaysay xataa hooyooyinka gobol ka mida ma awoodi karaan markay ka soo laabtaan shaqooyinka inay salaada cisho istaagga ku tukadaan walaalayaal wixii saa aad ku shaqaysataan